dowladda hoose 100 kun oo Soomaaliya dollar bay ku dartay oo balan qaaday waana ku dartay waana la hayaa lacagta 100 kun oo dollar inta in ka badan inuu ku darsan doonaa ilaa ay dhammaan sanadka isaasay waxa kaloo maxay celinaynaa xukuumadda Soomaaliland oo hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici golaha xukuumadda oo aqbalay codsigii aynu diraynay ilaa min maalintii musharaxiinta ay ahaayeen aan diraynay mashquul kale ku jiray waddan kale ku jiray siyaasad kale ku jiray jidad dhaadheer oo kale oo waddanka albawaa loo soo sameeyay maanta ayaa nasiib u yeelanay in laynoo soo jeesto waxa ka caawisay oo dadka caawiye ka mid ah hay'adda bangiga horumarinta Afrika oo soo mariya hay'adda Save the Children xukuumadda oo ku darsatay miisaaniyadda tii ka horena lacag u qoonday soo ku dartay tasanadkana ay ugu jirto tasanadka dambana aabilayno inay ku dari doonto oo ay joogaan xildhibaanadii aad soo doorateen haddaad reer Baki tihiin sharafii wanaag bay u tahay inaan maanta idinkala qayb galno xafladda dhagaxdhigga waddada isku xidha Boorama iyo Baki oo ah mid ay baahi weyn u qabtay degmada Baki oo ah degmo wax soo saar xagga beeraha xoolaha iyo dhinac walba degmada waxaa haystay dhibaato aad u ballaaran oo ah inay ka xidhnayd waddanka oo dhan oo muxuu ahaa wax soo saarkeygii beeraha xoolaha iminkana laga helay macdan fara badan intaasba inay ka xidhnaayeen suuqyada ay u gaari lahaayeen sidaa daraaddeed ayaa insha Allah jidkaas inuu noo dhib yareeyo ayaa la filayaa jidkan waxa weeyaan mid si dhib yar ku yimid maaha waxa iska kaashaday hay'ado fara badan African Development Bank oo ingaas soo mariyay oo hay'adda Save the Children soo mariyay oo barakaad runtii maanta waa maalin weyn waa maalin uga duwan dadweynaha reer Baki maalmo badan oo soo maray waa maalin lafdhabar u ah dadweynaha reer Baki taariikh hore ugu sugan waayo waxaan maanta ama saakar subax la soo dhagax dhigay jidkii isku xidhayay Boorama iyo Baki ama Baki iyo Boorama isku xidhayay anugu kulley jidkaas waxaan oran lahaa kelmad ahaan reer Baki haddaad tihiin horta jidkaas inta ugu badan iyo maxay ahayd juhdiga ugu badan iyo dadaalka ugu badan iyo wax ka qabashadiisa waxaa xooggeega 100% waxaa xooggeega leh amba awoodeeda wada oo mashiinka dhaqaajinaya iyo amba mutahawsha steerinka u haya hay'adda horumarinta jidadka wadooyinka Soomaaliland RDA ayaa inta ugu badan fulinaysa hadday qalabkeedii tahay hadday khubaradeedii tahay hadday tahay aqoonyahankeedii kale waftigan maanta socda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay ay idinka jasaay siiyo waxqabadka aad qabateen taariikhda idin qori doonta mar labaadna waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isna bixiyey amarka hay'adda wadooyinku ku timiday oo ku ballan qaaday inuu waddada Baki Boorama dhammaystiro waxaan leenahay adigana taariikhda ku qori doonta waa waajibaan kugu lahay aad iyo aad waana ku ballan qaadaynaa waxqabadka aad qabatay inaan abaalkiisana celin doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi oo ay ugu horeeyaan madaxda maanta halkan la fadhida xildhibaanada golaha wasiirada culimada cuqaasha odayaasha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo si nafurnimo ah noo aqbalay codsigayagii u tixgeliyey u dhageystay bulshada intaa leeg degmada kolley iskaga marhumayno mudanayaal mudane wasiir ku-xigeen waad ogtihiin oo waad la socotaan degmadu waa degmo ballaaran oo ka kooban xoolo dhaqato beeraley bulshada intaa leeg ganacsigeedii markaa waxa weeyaan waxa weeyaan lafdhabar u ahayd waddada oo ah suuqgeynta markaa waxa weeyaan maanta riyo badan baan noo rumowday aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaanaanu idinka mahad celinaynaa cid kasta oo waxa weeyaan ka soo shaqaysay waxaanu diyaar u nahay inaanu labada gacmood ku qabsanno gacan midig baa ninkii hore sheegay labada gacmood baan ku qabsanaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa kambaniga ka shaqaynaya waxaa kaloonu soo dhaweynaynaa shaqaalaha waxaanu soo dhawaysanaynaa gaadiidka
وحويان دمرك واحد أقولي دون أنا حاضر أي كمبريجاس وحكون كرسان دورو أنا وحنا لقرب تعودون نبي فكذا إنه كذا صوب لغنا إن يلا حاجة الله ينادو أيام هكذا مرينا وحنا كوجينا بورنا فكذا كوجينا كمرنا إلا إنك ما أنت الحمد لله ما دام أو نبلغ جوا وقالوا هذا الرجال ركب على بالي مدحوينها dalka Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici maalintay doorashada ku jireen halkan bay nagula qadeeyeen Muuse Biixi wuxuu noo ballan qaaday wadada halkaan ka qaaday inay bay Hargeysa gali doonto inay taga khudradda baki laga beeraa inay Hargeysa tagi doonto noogu ballan qaaday الحمد لله بلقاتك إلهي ما أنت أيوك هني أنا وروح بلقى علينا إنك واحد الله يسمع لا بس أنا اللي كردي واحد بلقى علينا شنطة سنة ما لنا صوت علينا مستبيع نبايلي نعلوينا بايلي وضي قال دمنا ياش الله فاحنا اليوم وسوق يا أبوي وضي يملكوا سوق وضي يقولون دموع إسلام تبى ترى الله صفر وصف يقول كل غيركي وسلمي وضي يموت انت عشيش والله قال لي وكون كاي قال له جوج ابوي وطلع سمرك لين هذا وحباه هي حكيبه horta وكون كاي قال له جوج والله ما انت وحلال هاي الحمد لله إلهي باب محله وكل كاجي بقى لقول جوجا وهو كبح وإلهي باب محله reebaki aad u mahadsan aan uga mahadnaqayno soo dhaweyntoodii quruxda badnayd ay sameeyeen laakiin waxaad la tusteen maanta inay tahay wadadu halbowlihiinii iyo meesha ugu mudnayd ee ay reebaki u baanaynaaydeen wejiyadiinna iyo sidaad adcidda u taagnaydeen ilaa subaxii ayaanu ka akhrisanoo fariintaasi wayna gashay annagana waxay noo tahay inaad nagu shubteen shidaal ka badan intii hore aan ku shaqaynayno oo maanta taangiga aad noo buuxiseen intaa ka bacdi waxa weeye waa la wada qabsanayaa dawladdii way soo jeesatay hay-aduhu xukuumaddu meeshay u dirto ayay ka shaqeeyaan hadday meeshan hayada joogaan iyo haddii kale iyo dawladda inteeda iyo shaqada inta ugu weyn ee buuraha ah oo hay-adda waddooyinka ee Somaliland iyo oo ay fulinayso maxaanku idhahdaa hay-adda waddooyinku oo maanta cagafyadeedii iyo qalabkeegiiyo inteedii ugu badnayd ay maxaanku idhahdaa camuud yaallaan waxaanu doonaynaa inaannu keenno halkan baki oo aa u diyaarisaan meeshay degi lahaayeen iyo kombonkii ay degi lahaayeen oo 10 cagaf qaadaya in ka badan dawladdu campaign bay ku jirtaa waa laga yaabaa sometimes shidaaladu inaga raagraagaan saxiixyadu meelo kale oo maxaan ku dhahay galaan baa dhici karta cagafyadaasi inay istaagaan ma doonayno waxay ku shaqaynayaan tamaadkeenna iyo macdanteenna iyo waxaan la baxna halkan inay cagafyadaasi ku shaqeeyaan oo maalin istaagin shidaalka iyo waxay ku shaqaynayaan iyo masaarifaha waxa dadka lacala hadday xukuumaddu in yar kala goyso inta reebaki waa laga rabaa intaa ka bacdi xukuumadiyad iyo shacab baan noo qaayaan maxaan ku raahdaa aynu kala nahay annagu xildhibaan ahaan markaan nahay dadkii aad doorateen baanu nahayoo shacabkaanu ka mid nahayo xaggiinaan ka soo jeesanaynayo lacagta inta ugu horraysa anigaa ku dhawaaqaya waddadaa maanta waxaan ku darsanayaa $1,000 oo lacaga iyo degaankii wax soo saarka hadday noqoto xoolo hadday noqoto beero iyo hadday noqoto macdan iyo wax kalaba waa waddo halbowlaa oo isku xidhaysa midna waan idiin sheegayaayoo lacagta ugu badan ee gashay waddadani waa cashuurtii ka timid bulshada waa cashuurtiinnii oo dib laydinku soo celiyey waa cashuurtiinnii oo gashay gacan aamina oo dib idinku soo noqota iskuul waxbarasho caafimaad haddii markaa la wada bixiyo cashuurta
oo nin walba cashuurta ku waajibtay uu bixiyo horumarkuna wuu kordhaya dawladda hoosena intii ay qaban kartay qabanaysaa dawladda dhexena miisaaniyadda la idiin sheegayaa waa cashuurtii laga soo ururiyey bulshada taas ayaa la qorsheeyaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ضمان أهل كرمك إيو أهل شرفك خير بكي وغور مايرك وفدك وكمدها وزيرك وراكي وزيرك بيها حل بانوا متقنا خير بكي الميزان كله وضياشة عقاشة dumarka oo aad noola mataqaanaa noo soo dhaweeyey dhammaantiin marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaantaa ka bacdi aniga maanta waxay ii tahay farxad aad iyo aad iyo aad u weyn waxaannu ku taamaynay oo riyo uu nagu ahaa ma rumoobi doontaa mise ma rumoobitaa isku haysannay ayaa ilaahay wakhtigay wuxuu keenay inaannu soo dhagax dhigno maanta dariiqii baki oo aan ilaahay ka baryayno inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh inoogu dhammaado oo qofka ka tega magaalada baki iyo ruqi ka soo baxaa ay ku gaadhaan dhowr iyo 20 daqiiqo ay ku gaadhaan boorama ka boorama ka soo baxaana intaa ku yimaadeen waaye qalabka la keenay maanta hay-adda SCF waxay ka shaqayn doontaa wajahada sare ilaa dhuuso qurmuune ilaa laga soo gaaraya buurta madaxeeda bay ka shaqayn doonaan qolada kale RDA oo dawladdu ay hogaaminayso maareeyaha iyo wasiirku waxay ballan qaadeen inay ka shaqeeyaan halkan maanta inaannu soo qaadno qalabkaasaannu jeclayn hal su'aal baa ka timiday oo ah gaadhiga baldoosarka ee weyn ee dhagaxa jabiyaa inta badan wuxuu u baahan yahay gaadhi xambaaraa baa qaada inta badan marka ma soo mari karaa waxaa boqol iyo dhagaxaba ma soo mari karaabaa doontu ka taagnayd injineeradii iminku wayna la socdaan qiimaynayey waxay ballan qaadeen inay bartaa keenaan waxaan doonaynaa maayarka marti uga nahay golaha deegaankana marti ugu nahay in qalabka bawadile ina soo gali doona horta koow loo sameeyo goobay degaan innamada shaqaalaha ah ee dirawal leh ee farsamo yaqaan leh ee qalabka intaa leeg inoogu shaqayn doono waxay u baahan yihiin soo dhoweyn dejin iyo waxay u baahan yihiin urquunkooda waxay marinayaan in aynu halkaa kaga ballan qaadnaan loo baahan yahay waynu awoodnaa waynu karnaa inaynu wax walba la qaban innamadaas si ay wax ka badan inoogu qabtaan taa waadii ka barannay golaha deegaanku ballanqaad aad u sharaf badan buu noo sameeyey oo yidhi waan ka qayb qaadanaynaa weliba kabkaan wax ka bixinaynaa golaha deegaanka ee buuram wuu ballan qaaday lacagtii dawladdu ay ku tala gashayna waan haynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa iminka markaannu sidaa u cabbirno waxaad u malaynaysaa markaaba wax $1,000,000 ku dhow inaannu hadda helayno aad bay niyaddu noogu dhisan tahay inuu mustaqbalkaasi noo fiican yahayna waan arkaynaa